10 waxyaabood uu qof sameeyo haddii uu si dhab ah ku jecel yahay adiga. Waa wax la wada ogyahay in xiriirada maanta jira ay yihiin kuwo lagu wareero meel ay u socdaan aan la fahmi karin. Marka uu qofku jecel yahay kuna daneeyo adiga, waxaa jira waxyaabo uu qofkaas muujiyo ama laga arko. Haddii uu sameeyo waxyaabahan soo socdo badankood, waa qof adiga si dhab ku jecel. Number 1, waa qof aan waxba kugu dirqin adiga. Haddii uu yahay qof aan waxba kugu qasbin, waa qof go'aanadaada ixtiraama, qofka ku jecelna waa sidaas. 2, si fiican ayuu ku dhageystaa adiga. Qofkani iskama dhigo kaliya inuu ku maqlaayo, balse si fiican buu ku dhageystaa kuna fahmaa adiga. 3, waqti ayuu ku siiyaa qofkan. In badan kama maqlaysid, mashquul baan ahay iyo wixii la mid ah. Wuxuu mar walba heegan u yahay inuu kula hadlo markastoo aad u baahato. 4, wuu ku daneeyaa adiga iyo wax kastoo adiga ku khuseeya. Qof haddii uu daneeyo wax kastoo adiga kugu saabsan, qofkaas waa qof adiga ku jecel. 5, fariin buu kuu soo diraa si uu kuu xusuusiyo inuu kuu xiisayo adiga. Waajib ma ahan inuu telkaaga fariimihiisa ka buuxiyo, laakiin wuxuu kuu soo diraa fariimo qurux badan. 6, wuu ku xusuustaa maalin kasta qofkaas adiga. Waa macquul inuusan kuu sheegin inuu maskaxda kugu hayay maalintii oo dhan, amaba uu kaa fikiraay, balse qof haddii uu ku jecel yahay maankiisa waad ku jiraysaa. 7, waa qof adiga ku caawiyo. Wuu ku caawiyaa si kastoo macquul ah ee uu awoodo. Qofkan wuu ku garab joogaa kuna taageeraa adiga xaalad kastoo aad ku sugan tahay, adigoo u baahanna kaama tago. 8, wuxuu ka walwalaa dareenkaaga iyo waxa aad ka fikirto. Haddii aad walwalsan tahay, wuu dareemaa oo wuu ku weydiiyaa xaaladahaaga. 9, sida aad tahay ayuu kugu jecel yahay qofkan adiga. Hadday jirto calaamad sheegta in qofku jecel yahay adiga, waa midan. Markuu qof kugu aqbalo sida aad tahay, xumaan iyo wanaagba, kuna weydiinin adiga inaad isbedesho ama aad samayso waxaadan rabin, wuxuu qofkani kugu jecel yahay sida aad maanta tahay iyo sida aad noqon doonto berito. Ugu dambeyn, waa qof aad indhihiisa ka arki doonto jacaylkiisa. Talo yar, qofkaas oo kale haddii aad haysato, marnaba si fudud ha ku daynin. Okay saaxiibayaal, muuqaalkeena halkaas ayuu ku egyahay. Haddii aad ka heshay, like sii. Haddii aad nagu cusub tahayna, subscribe channelkeena. إن شاء الله أنتي المقال كنا حيقة وحان إذن كنا في سلام.